Kan yari muxuu dalbaday ka hor intii aan la dilin. Inta ka horeysase waxaan ka codsanayaa channelka oo subscribe saar gambaleelkana furo. George Stanley waa inankii ugu yaraa ee taariikhda Ameerika tan iyo haatan lagu xukumo dil. Inankan yar xitaa kursigii korontadu waa ka weynaaday. George waxa uu jiray markii dilkani dhacayo 1944 14 jir. Inankan yar ayaa maxkamaddu soo qabatay waxaana lagu xukumay in la dilo laguna dilo kursi koronto. Cunsuriyadda xilliga Ameerika aad ayay ugu badnayd tan iyo hadeeraynu joognana waa wiilkii ugu yaraa ee taariikhda Ameerika dil lagu xukumo. George maxkamadda waxaa ka buuxay dad cunsuriyiin ah oo aad u neceb midabka madow ka bacdina waxa ay ku xukumeen dil. Waxa loo haystaa dilka Betty iyo 11 jir ah iyo Maryam Amy Thames oo 8 jir ah. Dilkani ka dhacay waa Clancyton, South Carolina. Markii ka bacdi 2 gabdhood oo yaryar oo la weysanaa 24 saacadood laga helay meydkoodii iyaga oo la dilay laguna riday meel webi ah. Haddaba su'aasha la yaab kale ee la isweydiiyey ayaa ahayd inankan yara George iyo dilkan maxaa ka dhaxeeya. Jawaabtuna waxa weeye wax ka dhaxaysa haba yaraatee ma jirto dilka gabdhahan iyo inankan yar. Keliya hadalladiisii ayaa ku kaliftay in lagu xukumo dil. George ayaa waxa uu sheegay in uu arkay 2 gabdhood oo nool ka hor intii aan la dilin. Waxa uuna sheegay in ay 2 gabdhood wada wateen baaskiilado iyaga oo ciyaarayay meel shakaynta u dhow ee lagu dilay. Wuxuu sheegay inuu weydiiyey meel aan wax ka soo gurto waxbana iguma odhan way dhaafeen. Intaa markii uu sheegay waxa la qabtay George isaga oo aan wax baaritaan lagu samayn. Waxa la geeyay maxkamadda waxa ka buuxa dad wada cunsuriyiin ah oo aad u neceb midabka madowga. Waqtiga 1944 waxay ahayd markii cunsuriyadda ugu badani ka jirtay Ameerika. Iyaga oo aan wax baaritaan gelina George waxa lagu xukumay dil in waliba lagu dilo koronto. Reerkoodu aad ayay u warwarayeen. Hooyadii, aabihii iyo walaalihii aroor walba waxay ahaayeen kuwo ku soo kalaha jeelka. Waxa ka soo wareegtay 3 bilood. Maalinkii dambe markii la waayay wax daliila oo aan baaritaan galin waxa la gaaray xilligii la dili lahaa George waxa la yiri maxaa dalbanaysaa oo kuugu dambeeya. Wuxuuna dalbaday kutubka Bible-ka. Waxa loo soo kaxeeyay dhankii lagu dili lahaa. Waxaana mucjiso ku reebtay dadkii dilayay in uu gaari waayo kursigii korontada. Taasina waxay kaliftay in kutubkii laga qaado Bible-ka ahaa loona saaro kursiga si uu sare ugu soo qaado. Waxa la bilaabay xirxirida iyo diyaarinta dilkii George. Waxa la geliyay koronto 4 daqiiqo kuma qaadan intii ay nafta ka bixi lahayd. Markii nafti ka baxday la iska aasay 2005 waxa baaritaan la galay lana ogaaday George in uu ahaa bilaa dambi. Laakiin kiiskanba waxa laga dhigay kiis xidhan oo cidnaba dib uma furin. Taasina waxay kaliftay in uu ilaa maanta George yahay calaamad dadkii cunsuriyadda lagu dilay taariikhda Ameerika. Waan rajaynaya inaad ka heshay channelka subscribe saar gambaleelkana furo.